qamar sugaanigii markaasi fanaanka ah ee caanka ayaa Muuse Bixiga Somaliland u taliya ayaa waxa uu kabaha la dulmaray oo wuxuu yiri ma Muuse Bixi Muuse Joodan ayaa laga bariyaa inuu doorashada markaasi qabto. Arrintan si weyn ay dadka baraha bulshada ku jira oo la yaabeen xiniyaha waaweyn ee qamar sugaan intuu isu yeelay oo Muuse Bixi oo isaga markaasi Muuse Bixi marka laga hadlayo dadka Somaliland daga ee beesha Saaqiyo kuwa la joogaba inta badan inay wax ka sheegaan way ka cabsadaan oo aad bay uga cabsadaan sababtuna waxa weeye in jeelka leenta lagu soo siiyo. waxaana ugu dambeeyay waxa la meedkeeba ugu dambeeyo kaalisi sidaalay waxa jirtay in magaalada Hargeysa maalinimadii shalay toole uu ka soo degay nin si weyn caan u ah oo si gaar ah ka soo jeeda beesha Garxaajis gaaraan xisbiga wadani ka tirsan oo doolar lagu magacaabo in ciidamada Somaliland si gaar ah wiilka uu dhalay Muuse Bixi Axmed lagu magacaabo in uu airportka intuu gudaha u galay ninkii dhamaa ee salaadinta madaxda dhammaan ay sugayeen in intii la soo qabtay jeelka dhexe ee Hargeysa lagu tuuray. dadka qaar ayaa waxay kula kaftamayeen in markaasi ninkan doolar lagu magacaabo beesha uu ka soo jeedo in la yiraahdo beel markaasi iyagoo dadku ay kula kaftamayaan habar maxbuus oo ay la jeedaan in kii la qabtaba jeelka lagu tuurayo oo Faysal Cabdi Bootaan oo madaxayada ogeydeen in magaalada Laascaanood waqti xaadirkan uu ku xiran yahay generaal ama sarkaal sare ah. sidaas si la midna qamar sugan waa islayada kooxdano waxa la leeyahay waa lagu xiri doonaa oo Muuse Bixi ayaa afka la gashay walina waxba uma uu reeban oo kabaha ayuu la dulmaray bal aan idin daawadsiyo daawadayaal muuqaalka ugu soo hanjabay markaasi Muuse Bixi warniga Muuse Bixi sida doorasho looga bariyaa sidee madaxweyne doorasho ha dhacdo looga bariyaa Muuse Bixi ma ilaahay ba oh my god Muuse Bixi nala tartan sidee looga bariyaa isma huba miya ma Muuse laga bariyaa doorasho ha dhacdo oo SNMta markuu ahaana dagaal oh my god dareysan jiray oo guutadu raaca ay guul dareysan jirtay ma Muuse noo bariyaysa calatulla caleeg warniga Muuse Bixi sidee doorasho looga bariyaa sidee madaxweyne doorasho ha dhacdo looga bariyaa Muuse Bixi ma ilaahay ba Muuse Bixi nala tartan sidee looga bariyaa isma huba miya ma Muuse laga bariyaa doorasho ha dhacdo oo SNMta markuu ahaana dagaalku galo dagaal kasto uu ku jiro ku guul dareysan jiray oo guutadu raaca ay guul dareysan jirtay ma Muuse noo bariyaysa calatulla caleeg daawadayaal intaas ayaan ku soo gabagabeynaa Muuse Bixi iyo sidoo kale qamar sugaaniga caanka bal meesha ay ku biyo shubtaan dib ayaan idinku soo dayn doonaa sababtoo ah waxa laga yaabaa in qamar sugaani muddo dheer la xidho hadii lacala uu tago Somaliland maadaama isaguna beesha habar maxbuus uu ka tirsan yahay. saaxiibada qaaliga waad ku mahadsantiin haddaad soo gaadhay dhamaadka muuqaalka si aad u hesho dhammaan dhacdooyinka xiisaha leh fadlan YouTube-keena Hogol News subscribe noo saar muuqaalkana like ha ka ilaawn fikirkaagana commentiga hoose nagula wadaag. Hogol News baahiyaha bulshada